قيس بن سعد بن عبادة الأنصار الخزرجي في ريم مدينة ننكو ضيقها لما الشيء ري يثرب جاهلية وإسلاما ننكو ضيقها لما الشيء صادرت أبو عبد الله الذهبي وحوجي وجود قيس يضرب به المثل ضيق يقول لماذا قيس بن سعد والغمها ماها والغها القبصة نبى ضيق قيس هيك هيبة لجذا قيس بن سعد وكلمية ندير بانركاي وعدي هبل سيكي هيك نقول دير أول كسوق بس هم طيب وحاكمدا وحيابها كتوسي الدقيس يقبنوا يسويبا وعذر النقضي او محضر النقضي او يابس النقضي شيك الريب قصه uu sabciye duulaankii nabigu uu diray nabiga ciidan diray muhaajiriin ansaar ka kooban oo 300 rag ah meel la yiraahdo siif al-bahri buu u diray sariyatul khabat bawaagdan loo bixiyay ciidanka abqada ku noolaa niman reer banu juhayno gaalo u diro nimanka la soo kala gaabsho idab loo yeelay kibirkooda batay safarkii baa wadada ka marila dandaansigoodii baa batay horortadoodii ciidaha laga soo jiro ciidan buu diray nabigu saaxiibadan oo ma haynin abu ubayd u dhiibay amnu jarrah amin hada al-umma ciidanka abu bakar iyo umar baa ku jiray ciidanku markuu meesha tagay oo gaaladii waa qaxeen waa carreen fulinima lagu yaqaana waa baqdeen wala raad goobay inta la waqtiga waa dheeray saxaabada ka dhamaatay wixii yaray u soo haray buu iskugu yiraahdo abu ubayd soo ururiyay nin walba wuxuu hayay halka ku soo meel la gogolay وحيرو تمرة إن يرو قالونا إن يرو سويقة وحبال لسكو كياني وحبال الله قيب صدي وحوار دمالي إن يرو تمرة صهردي وكو صهردي جرابكي أهلك بعبيد ومامولي حبات بوس قيبين جري واجد من نص نص لفيه بواجد من لما مصدي بايتي أحمد بصحابتي قبصتي نمان كاسون ور لقى كي نقضان مرة بان إذن مركب وحاوي سيدون ما نقطه إذا كان صدح بقولة المهاجرين أنصاريت عمر يا أبو بكر باكوجرة صايد الدماتي وحنقول كأن الصحابة هذه ميل لودرو وحي سيد برتا على أوشة بربان نقطة كلول أوحل بالدولين يسمي سحالة قيمية أي أورنجي نبيك هذه أمر لصدروا أمر كاس ريجو هنا ولا لا ما يكون دعين ما نصون نغني صحابي إلى وركا كيانان صادينا وارد ماتي والله باهدي مرك بختك حلال النقضي انت عنبر كوينال الهيرموي قيس بن سعد حقو كبرغي هيرا كلو ريميو تغي جاسيرو ربن جهينا ويقوم مسلمين يو تغي وحو يري قيل إيغا إيبيا قيل هيلب إيغا إيبيا waxaad naga iibisaan timir aan idinka sii doono madiina markaan ku noqdo halkii neefba wisqi timiraan ku rabaa 60 suusoo timiraan insiinayaa neef geel haddaad isiisaan 9 halaad buu soo iibiyey 9 halaad buu dayn ku soo qaatay geela waad ii kaash garanaysaan buu yidhi aniguna lacagta dayn baa idinku siino madiina markaan ku noqdo yaan insiinayaa ninkii baa wuxuu yidhi yaa tahay wuxuu قيس بن عبادة اللي هذا أبترسوري قيس بن عبادة قيس بن سعد بن عبادة بن الدليم هو أبترسوري وحوري ما أعرفني بنصبك هذا ما أقاني لكن نصب كاس شكتي آديات بنو أقانا بوري سيد أهل يثرب كل علي بدرون شكتي بين شيئين وأرى وجهك وجها حسنا بوري أظن أن وجه قرحسنه نور هيا طايب بين مشيقيس نمبو مركز شان هذا كي إبسدي كلبو كإبسدي سوء 9 هلاد بو سو كينay hawshii sayidina Umar baa ka xanaaqay wuxuu yiri ninkan qabto wiilkan yarka hal la qabto yastadiinu bimaali ghayrihi asoo wax malaha qays wani dhalinyara wali ma guursan reer malaha xoolo malaha gobonimo laakiin banaanka iimaan Soomaali waxay dhangeesi dharab kuma jiro banaanku soo dhigay midug waxay dhaheen 20 jir midug jooga ilaahay oo ma ceeb asturin bay dhaheen 20 jir midug jooga ilaahay oo ma ceeb qarinin banaanka dad bakhil tahay dad deeqsi tahay dad fulay tahay wax oo dhan banaanku yaala meel maxtara ko dhib badan oo shidam miidhan oo
shiddada dhibkuna raggu soo kala saaraa berisamaadku waa la iska nuugi oo nin walba firiijkaasu yuu dhegtahayaa laakiin markay meeshu meel qaxar tahay ishaa dhiigi waa la kala bixi bur iyo biya loo kala baxaaya cumar baa dhex maray ciidankii wuxuu yidhi ninkan hala qabto qays ibn sacda maxaa yeelay xooluu soo dayn qaadanayaa bimaali hayri asagoo wax ma laha xaggee aabbihii buu qaamaynayaa ninkan hala qabto abu cubayda oo ninka faraha ka qaad iska daa 5 halaad markuu u gowracay welina 4 u dhimanta uu soo dayn qaato iyo abu cubaydana yidhi bas inta 3 maalmood baad maalin walba 2 halaad oo geeri noo gowracaysa intaan ugu filan waan soo duudsanay ilaah baan irsaaqi doona faraha ka qaad maya 9 halaad buu gaadhsiiyey 9 halaad abubakar baa 4 mucaaradnimo ka keenay abubakar iyo cumar baa maya socon mayso asagay u naxaayaan 60 wisqi 9 halaad meeqa wey 60 ku dhuf waa hanti aad u fara badan oo timir ah weliba nooc khaas ah mana haya asagu aabbihii wuxuu samayn doonaa war looma hayo baadoo maanta yidhaahda masaajid laga istaaga malyan igu qora hee aab baan ka soo qaadahaya ma soconaysaa 10 kun oo shilin baad ka qaadi kara wallahi ma tahay mise maa malyan way ka badan tahay hantidu fiiriyo idinku malyan maxay tahay waa 10 milyan lacag badan wey 9 halaad oo geel oo weliba hilib ah kormuu soo qaadahaya 300 nin deeqa markii loo qalaashiiba abubakar iyo cumar hawshoodii marka dambe waxaa u jixiyey abu cubayda way joojiyeen marka waxay 9 halaad kadib wax damba kaama ogelin waxaa dayn qaat aday ku taalla uu iska daayay marka qays ibn sacad aabbihii sacd ibn cubaada iyo waxaa loo sheegay ciidankii 300 ansaari muhaajiriin ahaa inay baahdeen oo baktigu xalaal u yahay wuxuu yidhi qays saan ku aqaanay hadduu bad qabo ciidankaa wuu dharjin doonaa buuri odaygu aabbi wiilkiisa waa yaqaanaa carruurta aad dhashay ayagoo yaryar baad kala garani ayagoo yaryaroo koray ah oo daa'ima oo ciyaaraya yaad nin walba isha ku mudood kala waalidku waa ileeriya wuxuu yidhi qays hadduu la socdo ciidanka uusan shahiidin wuu quudanayaa buuri sidii bay noqotay waa la yimid 9 halaadoo dayn asagoo wata oo laga rabo 9 ugu dhuftay 60 meeqa wey 540 suus wey 540 suusku waa imisa waa 2 kiilo badh ugu dhuf 540 suus 2 badh ugu dhuf 1350 kiilo timira wey 1350 kiilo timira wey asagoo la socdu keenay haddana sacad waxaa loo sheegay wiilkiisa markuu deeqdaas bixinayay ee uu saa wuxu bixinayay in ay saxaabo mucaaradeen oo la yidhi maaluusan lahayn buu ku dayn qaadanaya uuna aafaynaya wiilka alla qabto wiil waalan weeye wuu hadlo wuxuu yidhi ninkaani wuxuu ka soo jeedaa dhal gobeed weeye guri gobeed weeye makhraati waxaad ka noqotaan waxaan ka tegey markuu geela gadgadanhaya daynta ku gadanaya saxaabu makhraati geliy wuxuu yidhi makhraatiga ahda inaan ninkan reer juhayna aan intaasoo neef ka iibsaday mara ka noqdo cumar wuxuu yidhi makhraati kuu noqon mayna annagu cumar abubakar weydiina marag gala marag beenaad way dheh waxaan waa marag beenaad socon maayo waxba ma haysid maxaad qaadaysa saxaabo kale makhraatiga galay oo qays yaqaana aabbihiina yaqaanay ilaan nimankan waa muhaajiriin aad la soo baranin 4 beerood buu siiyey maanta ka dambe buu yidhi maanta kadib in aad bini aadan aad wax u soo qaatay gobonnimo lagugu celiyeeli maayana keen 4 beerood buu siiyey beer walba ay ka go'do markay u yar tahay 100 wisqi ay ka go'do idan gobonnimadu maxay keentay gobonnimadii waxay keentay in qays ay u tabacdo xoolo uusan sugayninba xaggana uusan filayn 4 beerood buu siiyey xadiidka qisadiisa nabiga hawsha loo sheegay oo yidhi qays waxaasuu sameeyey aabbihiina saasuu ku jawaabay saasaa hawshu nabi allow amaa inahu fii beyti juudin buu nabi calayhi salaatu wasalaam waa run guri gobonnimuu ka soo jeedaa gunnimo way abtirsataa gobonnimona way abtirsataa wax la og yahay wey mid ilaahay kula maagana way timaadaa aabbaha oo geesi ah oo nafnaca adugu inaad haadka roor noqoto oo daaqadaha ka boodo waa laga yaabaa
aabbaha bakayl ahaa inaad awow fog u baxsato ilaa nabiga xadiid ku sheegay xasana wadaadana daciifiyeen ilmaha marka la abuurayo oo 7 beri uu ku jiro raximka hooyadii malaga loo diro hawsha qorsheynaya wuxuu fiirinayaa ilaa 7 awow fiirinaya xagga reebtii xagga reedooba waxa laga yaabaa awowgaadi 8 7 in lagu ekaysiyo dhaqan ahaan gobannimo ahaan dadnimo ahaan muuqaal ahaan oo aabbahaadan yar ee ajaafiga laga leexdaba xagga kale in reebtiga meel fog lagaga 7 awow oo xagga reebti ay 7 awow xagga la fiirinaya kii marka masaxa loo arkay in ilaahay u arkay in lagu raaciyo marka in muuqaalka iyo booriga aabbaha u ekaata laga yahay laakiin injiinka ku saaran uu yahay injiinka awowgaadi lixaad ساو أقاذا نبي أكاد عليه طيب أما إنه في بيت جود إن الجود لمن شيمة أهل ذلك البيت بالنبي عليه الصلاة والسلام داقضي يقبل النمذو هيركا رقم بيب أوليهن هكون مشغولين أبو بكر وعمر وأقول لهم إذا شال يدينك مركز ويلك العلة يسين ويلك الداقة كو قمامة هاي ويسوق يحيدك كو ترسية inuu marraba aabbihii uusan agtiisa ku hoogaynin soo gobonnimo iyo tilaabo gobonnimo qaaday inuusan ku khasaarinin buu ogaa maalin maalmaha ka mida yaa isagoo socda qays ibnu cubaada qays ibnu sacad waxaa u timid haweeney waaye habar baa u timid duq baa hor istaagtay waxay tidhi markuu waraystay islaam yaqaanay ahayd oo waa hor is yaqaaneen markaas markuu waraystay u warantay waxay tidhi dhib kale ma jire innaa nashku min qilati aljurdaan bay tiri dhib kale ma jire jiirkii iyo dooliga bariyahan guryahana ku yar bay tiri dhib kale ma jiro jiirkan ugu yar macdu waa maxay raashin nooma yaallo dooli iyo jiir xagee ku bataa meel badar yaallo badar meesha dib laga waayana dooligu iska tagay xaafada kale u wareegaya xaafada kale u wareegay meelaha wax ku haysta uu u bogo xul ma ahsana hada alkinaya sarbeeb ka macaan oo ka qorxsan weligeed ma arage ii fadhiiso wuxuu yidhi saaxiibadii wuxuu yidhi maamadaas gurigeeda wax walba aadam cun hala dhigo imla'uu baytaha khubsan wa samnan wa casalan wa tamran buuri timir malab subag kibis iyo raashin u dhiga saxaabadii ahalkiinna ahayd awiyaashiinna ahaa ku dayanayseen dhaqankaasay lahaayeen tallaabadaasay qaadi jireen qaabkaasay gobannimada ugu dhiman jireen nabigiinni iyo rasuulkiinni aad rumaysnaydeenna wadadaasuu idiin qaaday nin walba wuxuu awoodi karo ha bixiyo ilaahna laga cabsado warkay galabtu waa intaa soonka ilaahay subxaana wa taala naga aqbalo addoomihiisa laga xoreeya naarta bisha ramadaan allah nagu daro wallahu subxaana wa taala aclam